xiddigu dhashay dalka Ingiriiska ayaa jacayl u qaaday gabar shaqaale ka ahayd gurigiisa ay kula noolaayeen xaaskiisa iyo carruurtiisa, taas uu la sameeyay xiriir qarsoodiya. Sidoo qoray wargeyska England ka soo baxay ee Dazan, ciyaartoygan ayaa magaciisa la qariyay waxaana gabadha gurigiisa shaqaalaha ka ahayd uu siiyay lacag gaaraysa 55,000 oo gini mar uu jacayl dhex maray, waxaana isku direen sawirro iyadoo dhinaca kalena xaaska iyo carruurtiisa uu daryeelayay. ciyaartoygan ayaa khiyaanadiisa ay ku qabatay xaaskiisa mar uu muddo dhinac kala socday gabadha shaqaalaha ka ahayd hoyga ama guriga ay ku noolaayeen, taas oo sida la sheegay mar horena isagu laftirkiisa uu guriga keenay gabadhani. muddo 7 bilood gudahood ayuu laacibkani ku siiyay lacag gaaraysa 35,000 oo gini oo kaasha oo uu arki karo mar kasta uu u baahdo. marka waxa uu sii raaciyay hadiyado kale oo qaaliya oo ay ku jireen silsilada dahab. waxa uu kaloo laacibkan siiyay gabadhaasi caashaqa ee gurigiisa ka shaqaynaysay 20,000 oo hadiyad oo lacag kaasha iyo hadiyado isugu jiray. sidoo kale 2,500 ayuu silsilad ugu soo iibiyay, halka sidoo kale uu ka bixiyay qarashaad kale oo hoteelo iyo meelo kale ay ku tagtay gabadhaasi. xiddigan ayaa wuxuu sidoo kale telefoonkiisa ugu diray gabadhan kumanaan fariimo qoraal ah, waxaana cajiib ahayd in xaaskiisa ay kaga cudur daartay marar badan uu gabadhani u tegayay oo hooyadii xanuunsan uu gurigeeda kaga booqanaya, taasoo cudurdaar uu kaga dhigtay. xaaska laacibkan ayaa ka shakisay mar uu isbeddel ku yimid ciyaartoygan iyo habkii ula macaamili jireen, isla markaana isku dayay in uu ka ilaaliyo telefoonkiisa oo horey fasax ay uga ahaan jirtay. shakigaas ayaa sii kordhay mar uu laacibkani sheegay in uu ku booqday hooyadiis oo ay xanuunsanaysay, xaaskiisana uu ka qariyay, balse ugu dambeyntii la arkay cadar dumar oo ka soo carfaya. sheekada ayaa qaraxday maalin uu laacibkan galay xamaamka ama suuliga oo ay xaaskiisa gacanta ku dhigtay telefoon, isla markaana ay furtay fariimaha iyo waxyaabihii ay isku dirayeen gabadha shaqaalaha ka ah. sidaas ayayna wax walba ku fashilmeen. laacibkan ayaa laga ceeliyay guriga uu muddo kaga maqnaa, hase yeeshee waxa uu raaligelin siiyey xaaskiisa isagoo qirtay qaladaad uu sameeyey, waxayna noqotay mid cafis ay u fidiso mar uu ballan qaaday inaanu mar dambe noloshiisa ficilo noocaas oo kale aanu samayn doonin.